Horay u ahaa xoolo dhaqato iyo beeraley kuwaas oo ka soo barakacay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Mudug kadib markii beerihii ay lahaayeen uu ka baabi'iyay anyax sidoo kalena xoolihii ay dhaqan jireen ay u waayeen calafkii ay cuni lahaayeen waxaana maalmihii ugu dambeysay qoysaskan siyaabo kala duwan ay u soo gaariyeen xiradan cusub oo laga aasaasay duleedka xaafadda horumar ee magaalada Gaalkacyo. hadda ayay bilaabeen inay dhistaan guryo ka samaysan tiirar iyo bacaal la isku geeyay maadaama ay ka soo tageen deegaanadii ay ku noolaayeen waxaana u bilaabanaysa nolol ka duwan tii ay horey ugu jireen kuwaas oo ahaa dad wax haystay balse hadda daruuftu biday inay soo maciinbidaan magaalada Gaalkacyo oo ay isleeyihiin gargaar ayaad ka heli doontaan. xeradan ay ku nool yihiin qoysaskan cusub ma laha biyo musqulo ay isticmaalaan sidoo kalena ma haystaan waxyaabo ay nolosha ay ku dibiraan maadaama magaalada ay soo galeen iyagoo jeeb maran. qaar ka mid ah qoysaska danyarta ee ku nool xeradaasi oo la hadlay TV-ga Universal ayaa ka sheekeynayay waxa ku kalifay inay halkan ay soo gaaraan iyo xaaladooda nololeed. xoolihii yarka aan haysanay arigii iyo hadeelaydna iyo beerihii ayax baa daaqay wixii waa nagu filaan waayeen meesha aan hadda nimi biyana male wax hadda aan haysano lama arko waxaan doonaynaa hay'adu inay noo soo falaan hadeelada noo soo gudmayaan. waxaan soo gaarnay shalay baan soo gaarnay waxaan dhisanaynaa buush weeye oo aan hadeelaynaan rabnaa inaan ku noolaano wax noo yaaliyo waxaan ku haysanaa midna lama arko. xoolaha ari waxaan kaystay hal tiro ari ah halka tiro ari ma ka dhaqmaayo wixii ii daaqlaay geliyo dhanaan ayax wadimay meesha ariga iska qaadanaaya ilmuhu xaraacano wax laga lismay ee nolosheedii waa iska meel wax iska aayeen arigaas xoolaha iska gabdhad ku haystay hadda arigaasna marka ay wax u imaado ariga ay wax iga leeyahay ariga neef miigaan wax yar kana ay dariska wada tahay ariga ilmuhu naf raadsanaya ariga yahay magaalada sabab ariga naf raadsanaya biyaha iyo xageynkan biyaha meel fadlan buu doonta arag hadda biyaha halkaas bari lacagna ma haysto saddexdaas biyaan ka qatamo oo soo tagan waxa raaxay dhibciya ma aan u qabto aliga dhibciya. mid ka mid ah horjoogayaasha xeradaasi ayaa la hadlay TV-ga Universal wuxuuna ka waramayaa tirada soo gaartay xeradan cusub iyo xaaladooda nololeed. dadkan u jeedaan oo meesha degan waxay gaarayaan ilaa 475 qoys. dadkan caaradkooda ilaa 2 bilood bil iyo 40 bari iyo 5 cisho caaradkooda soo degeen. dadkan waxa ka soo barakaceen dadka xoolo dhaqata oo reemiyi ah iyo waxay isku jiraan dad beeraley ah. waxay ka soo barakaceen magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug daafihiisa baadiye iyo beeraley waxay ka yimaadeen ilaa awrla bitaale eriyadiisa eriyada dool geelelo beerahan oo dayax dadkii beeraleyda ahaa. liiban cajiib xaaji TV-ga Universal Gaalkacyo. magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kulan ballaaran oo ka dhacay ayaa waxaa lagu soo xulayay